مسؤولين كسعودي وزارة horumarinta caafimaadka Soomaaliland madaxda ugu sareysa hay'adaha MOT iyo HPA oo maalintii labaad ku sugan gudaha magaalada Boorama ayaa waxay ujeedada socdaalka ugu daaran tahay indhaynta waxyaabihii ka hirgalay mashruuca daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee Shine oo in muddo ah ka socday degmooyinka Boorama iyo Saylaca waftigan ayaa saaka kormeer kala duwan ku soo maray xarumaha hooyada iyo dhallaanka iyo isbitaalka guud ee magaalada Boorama halkaas oo warbixino ku saabsan mashruuca daryeelka hooyada iyo dhallaanka ay kaga dhageysteen مسؤولينta xarumahaasi magacaygu waa Dr. Fathiye Maxamed Nuur waxaan ahay dhakhtarad takhasusa oo ka shaqeysa waarka umusha iyo hooyada abaha ugu badan ee aan u shaqeyno aan iraahdo dadka ugu badan ee u shaqeynaa waxa weeyaan dadka ku nool gobolka Awdal iyo xuduudaha ku soo dhow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو دكتور هذا جامع مدحة نيونيتال يونت بورما ريجنال هوسبيتال. هلكم waxaan ku soo dhaweynaynaa HPA iyo MOT maanta noogu yimid halkan oo insha Allah nala shaqeyn doona. xaruntani waa xarun laba sano iyo bar jirta waxaan lagu daryeelaa carruurta daadoodu aad u yar tahay. Service-ku waa bilaash shaqaalaha ka shaqeeya waxa weyn 14 qof oo qualified iyo badan yihiin marka maxay inay shaqadu aad bay noogu socotaa aad baan u shaqeynaa saaka waa aroor hore waxay aad iyo aad mataqaanaa isbitaalka Boorama guud ahaan team guusha dalkaysaan waa guul u mataqaanaa ku timiday gacmo wada jira guul qof kaliya oo kale ma ahayn team baa runtii habeenaya dharaarba ila soo jeeda hawshan laf dhabar u ah waliba muddo badankeegana inaan aanu hadan magac u maqaadeen qolkiiba 90 inay iyaga culays ku dhacay inta kadib waftigan ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Awdalka degmada Boorama iyo suduwaha caafimaadka gobolka Awdal kulankaasi oo lagaga hadlayay sidii loo xalin lahaa caqabadaha ka hor yimaada mashruucani sidoo kale waftigan ayaa kormeer waxay ku soo gabagabeeyeen xarunta kaydka daawooyinka ee hay'adda HPA waxaana halkaas ugu horreyn ka hadlay mas'uuliyiinta hay'adaha MOT iyo HPA waxayna sheegeen in mashruuca Shine ee daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee degmooyinka Boorama iyo Saylaca uu socdo sidii loogu talagalay sidoo kale waxa halkaas ka hadlay isla markaasina tilmaamay ahmiyadda mashruucan iyo muddada labadaasi maalmood ay ku guda jiraan agaasimaha waaxda daryeelka bulshada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Mustafa Maxamuud Axmed Digi iyo Maxamed Xaamud oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda HPA waxaan labadii maalmood ee u dambeysay aan ku jirnay kormeer aan ku kormeerno adeegyada caafimaad ee aasaasiga ah ee ka socda Boorama iyo Saylac ee ku saleysan mashruuca loo yaqaano Shine oo ah mashruuc isku dhafan oo ka socda deegaamada Boorama iyo Saylac mashruucan hadii aynu siiro kooban uga hadalno mashruucan waxa bixiyay deeqdiisa dawladda Ingiriiska waxa loogu talagalay mashruucan inuu u adeego hooyada iyo dhallaanka degmooyinka ama gobolada loogu talagalay in mashruucan ka socdo gobolka Awdal iyo gobolka Togdheer iyo degmada Ceerikaabo wuxuu markaa daarnaa mashruucan socdaalkan ama kormeerkan in loogu kuur galo mashruucan oo ay fulinaysay wasaaradda horumarinta caafimaadku iyadoo kaashanaysa hay'adda HPA iyo kambaniga kharashka mashruuca maamulayay ee loo yaqaano MOT McDonald maanta waxa iyo shalayba nala joogay wafdi balaaran oo ka socday kambaniga MOT McDonald ee fanka maamula ama lacagta maamula mashruuca Shine iyo wafdi balaaran oo ka socday hay'adda HPA labada wafdi oo iskaashanaya ayaa xarumaha caafimaadka ay ka mid yihiin xanaanooyinka iyo isbitaalka magaalada Boorama kormeer ku soo maray waxay kulamo gaar ah la yeeshay mas'uuliyiinta dawladda ee sida maayarka magaalada Boorama iyo barasaabka gobolka Awdal iyo suduwaha caafimaadka iyadoo loo kuurgeliyay mashruucii Shine ee bilaabmay sanadkan horaantiisii wixii qabsoomay ilaa hadda iyo caqabadaha jira sidii loo xalin lahaa iyo wixii inta inoo hadhay sidii aynu u dardargelin lahayn shaqada weyn ee baaxadda leh hortaala وعبد السلام ساها ورباهنت قرنك جمهورية Somaliland مقالة Boorama